Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ahlan wasahlan, soo dhawaada walaalayaal. Kuna soo dhawaada xalaqadeena Daily Podcast. Daily Podcast badanaa waxaan kusoo qaadanaa mawduucyo runtii aad iyo aad u qiimo badan oo is leenahay dhalinyarada markaa aqoon iyo cilmi fara badan ay ka faa'iidayaan. Sida mawduuca hore aad soo aragtay, xalaqadeena maanta insha Allah waxaan ku faaqiidaynaa 30 talo aan is leenahay 2025 qof kasta oo qorshe leh, qof kasta oo riyo iyo hami leh, talo iyo markaa fikir iyo aqoon ayay markaa kusoo biiri doonaan. Hal talo oo lagu siiyo ayaa runtii noloshaada wax badan ka bedeli kara. Hal talo oo qaldan oo lagu siiyo ayaa noloshaada markaa qaribi kara. Sidaa daraaddeeda talooyinkan aan ku siinayno in aad uga fiirsato noloshaada macno fara badan ayay runtii kusoo kordhi doona insha Allah. 2014kii taajirkii dalka Sacuudiga u dhashay ee kaalinta kuwaad ka soo galay waddankaas 2014kii Cali Qaxdaani loo yaqaanay ayaa maalin su'aal la weydiiyey ahayd sidee ayaa darajadan kusoo gaartay. Waxa uu ku jawaabay maalin ayaan diyaarad soo raacay deetane nin taajir ahaa oo diyaaradda saarna ayaa su'aal i weydiiyey buu yidhi. Su-aashaasi waxay ahayd waa maxay ganacsi? Waxaan ku jawaaba buu yidhi ganacsiga waa inaa alaab soo gadid kadibna alaabta iska iibisid dhaqaalana meeshaa ka samaysid. Laakiin buu yidhi jawaabta aan maalintaas bixiyey iguma uusan raacin. Kadibba buu yidhi talaan ku siinayaaye aad ii dhegeyso. luqadda carabiga marka la joogo ganacsi waxaa lagu yidhaahdaa ereyga tijaar. Marka waa 5 eray buu yidhi. 5ta eray mid kastaa macno gaar ah ayay markaa u taagan tahay. Ta'da buu yidhi waxay u taagan tahay tawfiiqa min Allah, in ganacsi Ilaahay ku waafajiyo. Ja'da buu yidhi waa jura oo ah inaad go'aan macnaha qatara qaadan karto. Inaad ganacsi markaa samaynayso go'aano qatar inaad qaadan karto buu yidhi waa loo baahan yahay. Alifka buu wuxuu u taagan yahay amaana oo ah inaad adigu ammaan tahay. Waxna lagu ammaanaysan karo waxa aad gadaysana markaa ay dadka wax kaa gadanayaahi ay u ammaan qabaan. Rada buu yidhi waa rifqun oo ah inaad markaa waxyaabaha aad samaynayso si tartiib ah oo degan oo ka fiirsila markaa inaad u qaadato go'aanada. Go'aan laga fiirsada macnaha inaad inta badan qaadato. Sidoo kale buu yidhi haaduna waa hibo min Allah, in ganacsiga iyo markaa hibo inuu yahay markaa. Waayo mararka qaar waxaa dhacda ganacsi qof inuu bilaabo laakiin ganacsi qof uu ku fashilmo. Waa inta badan waxaa la yidhahdaa qofka markuu hibo shayga uu qabanayo markuu hibo uu u leeyahay uu ku raaxaysanayaa aad buu u jeclaanayaa yacni culays fara badan kuma dareemayo. Laakiin qofku haddii uusan hibo lahayn ama shaqada uu qabanayo uusan hibo u lahayn culays fara badan iyo madax xanuun fara badan ayuu markaa qofka kala kulmi karaa. Marka uu yidhi 5tii talaba meel ku qortay 5tii talaba wuxuu yidhi aan dhaqan geliyey duco iyo waxqabad fara badan baa la imaaday ugu dambayna kaalintii kuwaad ayaa ku soo baxay. Marka halkaa waxaan ka fahmaynaa hal talo oo mararka qaar lagu siiyo aad bay ku anfacaysaa. Marka dadka aqoonta leh ee kaa waaweyn ee khibradda iyo waayo-aragnimo fara badan leh talooyinka ay bixinayaan inaad aad u dhegeysato, inaad aad u dhuuxdo adiga noloshaada ay macno fara badan kusoo kordhin doontaa adiga ayayna ku wanaagsan tahay. Waayo insha Allah waanu bilaabaynaa sidaa daraaddeeda kursigaada soo toosiso talooyinkan insha Allah aad u fahan aadna ugu dhaqan insha Allah. Waayo waxaa la yidhaahdaa qofka haddaad wax barto ama aad wax u sheegto laakiin qofkii wixii aad u sheegto uusan qaadan qofkaasi waxba ma aadan baran ama waxba ma aadan barin. Marka sidaa daraaddeed inaysan waxaas inaga noqon insha Allah inaan wax kala korsano ayaan rajaynaynaa. Talada koowaad aan runtii aan kula wadaagayo waxa weeyaan qofna ha ku qiimeynin muuqaalkiisa. Qofka muuqaalkiisa marnaba ha ku qiimeynin. Dadka aad la naxnooshahay ee la macaamilayso ee nolosha marka aad la wadaagayso ee saaxiibadaada iyo qaraabadaada iyo cidda kale aad baranaysaanba ama aad waxbarashada iskula jirtaan ama aad shaqo wadaagta tihiin muuqaalka ha ku qiimeynin. Qofku asagoo yar ayuu wuxuu noqon karaa qof caaqil ah. Qofku asagoo weyn ayuu noqon karaa qof caaqil ah. Sidaa daraaddeeda mararka qaar midida waxyaabo fara badan oo aysan goy karin ayaa waxaa jirta inay sakiintu jarto. Marka inaad aad u fahamto muuqaalka qofka aad ku qiimeynin aad ugu didaal. Amitabh Bachchan waad wada garanaysaan waa aktar dalka Hindiya u dhashay taajiriinta waddanka Hindiya kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad baan qiyaasaya mid buu ku jiraa. Maalin buu maqaayad soo galay. Maqaayaddii markuu soo galay baa waxaa dhacday in dadkii oo dhan ay fadhiga u istaagaan marka laga reebo hal qofood. Aad buu ula yaabay ninkii buu imaadaba waxuu ku yidhi niyow filmaanta ma daawataa? Markaasuu yidhi maya. Waayahay Amitabh Bachchan ma garanaysaa buu yidhi. Mayuu yidhi haddane. Kadib wuxuu bilaabay marka Amitabh Bachchan inuu ninkii isbaro. Marka uu sheekadiisa dhameeyey ayuu ninkii su'aal weydiiyey yidhi adiga qofka aad tahay ii sheeg.
ninka wuxuu ku jawaabay magaciga waxaa la yidhaahdaa Rahan Tata. Rahan Tata markuu magaca maqlaba Amitabh Bachchan ninkii salaam buu u saaray. waayo ninkan iyuu yahay marka Rahan Tata waxaa jira shirkad loo yaqaano Tata Group. Tata Group 160 sano ku dhowaad ayay ganacsiga u shaqaynaysaa. 2024kii bishii 7 ayay nambar baaritaan ku sameeyay shirkaddan loo yaqaano Tata Group. laakiin xilligaas waxay investment sameeyeen 160 bilyan oo lacag ay invest gareeyeen. income-ka sanadkii soo gala waliya shirkadahan Tata Group 400 oo bilyan oo dakhli waaye. sidaa daraaddeed marka ilaa 30 shirkadood waaye ninka ugu sarreeya shirkadda loo yaqaan Tata Group ayaa loo yaqaan Rahan Tata. ninka uu la kulmo marka ninka loo yaqaan Amitabh Bachchan ninkan buu ahaa. marka qofka muuqaalkiisa marnaba ku qiimaynin. dadka la macaamil lana dhaqan la fadhiiso noloshaada marka wixii ka soo baxa marka ku qiimay. talada labaad runtii ku dhaafay waxa weeyaan dadka kala caawi. diinteena suuban rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo eebaheena qiimaha iyo qaayaha badan leh marar fara badan ayay markaa nagu dhiirigeliyeen inaan dadka u caawino. dadka inaan si fiican aan markaa ula caamilno. waayo dadka inaad caawisaahi marar badan adiga oo keliya faa'iido kuuma leh. ayagana faa'iido bay u tahay. marka labada dhinacba faa'iido u tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuu leeyahay watacaawanu cala albirri wattaqwa. caawinu macnaa iscaawiya wanaagii khayrka isku caawiya iyo alla ka cabsiga. marka dadka inaad caawiso aad ay muhiim u tahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mid a nin soo qabtay. ninkaasi Quraysh qabiil ka mid oo madax u ahaa Cumru bnu Jamuux baa loo yaqaanay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam kuu soo qabtay ninkan maadaama dad badan oo muslimiina la dilay ama asagu uu sabab u ahaa inuu dilay nabiga hal dil muusa dhihin. laakiin markii la soo qabtay la karaameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam hashiisi qaswa loo yaqaanay caanaheeda loo lisay meel la jiifiyey cunto iyo biyo iyo la siiyey baa maalinta la daray markuu dhowr maalin meeshii joogay. qoladii marka asagu ka soo jeeday waxay aaminsanaayeen in ninkaani la dilay. sidaa daraaddeeda tacsi fara badan bay iska dhigtaan iyaga. marka ninkii markuu reerkiisa ku laabtay oo ay la yaabeen uu ninkii habeenkii soo fekeray taasina waxay sababtay marka in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu usoo laabto diin islaamka uu qaato. soo nabiga calayhi salaatu wasalaam mar kale ayuu qodobkaas sameeyey haddana. waayo markii Qurayshi ay isku imaadeen ay magaalo u geliyeen nabiga inuu yahay majnuun koo waala inuu yahay baa nabiga calayhi salaatu wasalaam islaam waayeel ah oo alaab culays wada uga daba imaaday. deetana alaabtii buu la qaaday. marka inta waddada ay ku sii jireen oo uu sii caawinayay baa waxaa dhacday in islaantii marka ay tiraahdo wiilkaygiyow kuwa Muxamed liilaaha soo baxayo inkaarinoo majnuuniye ka caarar meesha ku aragtid. xaafadii markii la tago alaabtii guriga la geeyey wuxuu ku yiri marka islaantii Muxamedka lagu sheegayaba waaba aniga. taasi waxay sababtay in islaantii marka meesha ay ku islaanto. marka dadka inay caawiso wax fara badan oo qiimo ah ay runtii soo kordhin doontaa. maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in 3 wiil oo saaxiibo ah inay ku heshiiyaan inay galaan jaamacaddan loo yaqaan Stanford ee dalka Mareykanka. laakiin lacag isku diiwaan geliyaan ayayba waayeen. kadib markii ay tashadeen fikir u soo baxay ahaa inay sameeyaan show. nin fanaan ah oo loo yaqaan Ignacy Bedrowski ay ku casuumaan. kadibna lacagta meesha uga soo xaroota inay fanaanka qaybtii kula heshiiyeen inay markaa siiyaan qaybta kale ayay u soo baxdana marka ay jaamacaddu isku diiwaan geliyaan. waayo Ignacy Bedrowski baa loo tegey waxaa lagula soo heshiiyey $2,000 in xafladdaas markaa lacagta ka soo baxda uu ku leeyahay asna uu markaa showga qabto. sidii markay dhacday oo showgii markaa la diyaariyey ninkii fanaanka ahaa markaa meesha u imaaday baa waxaa dhacday xafladdii alla markay soo gabagabowday lacagtii la isku soo dardaray 1,600 noqotay. wiilashii aad bay u niijabeen. Bedrowski bay u imaadeen. wiilashii markay niijabeen waxay u tageen Bedrowski kadibna waxay ku yiraahdeen 1,600 sii qaado lacagta kalena waan ku keeni doonaa insha Allah diin ahaan noogu yeero. laakiin Bedrowski arrintii aad uga xumaaday wuxuu ku yiri markaa wiilashii lacagtan qaada wixii la idinku leeyahay ka bixiya idinkana mid ka soo idin kamid ah 10% ha qaato wixii soo hara aniga hal ii keeno. dhacdadaas markii dhacday kadib baa waxaa dhacday dagaalkii koowaad ee adduunka. Bedrowski markaa wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii waddanka Poland. marka Poland colaad iyo markaa abaar iyo waxyaabo fara badan baa ka dhacay.
cidda keliya ay caawin kartay xilligaas wuxuu ahaa Haber Hoover oo ahaa madaxa dhaqaalaha iyo cuntada dalka Mareykanka. laakiin Hoover markuu arrintii maqlay 100,000 oo tan oo cunto ayuu u soo diray dadkii reer Poland sidii ay ku badbaadeen. Bedruski aad buu la yaabay qofka caawinaya, laakiin marka ay kulmeen ayuu u sheegay in ardaydii saddexda ahaa mid ka mid ah inuu ahaa uu maalintii caawinayay. sidaa daraaddeed marka dadka inaad caawisid aad ay muhiim u tahay. waa talada labaad aan ku dhaafayo. qodobka saddexaad, aragtidaada ha ku go'aan qaadanin. qofka bini'aadamka caqliyadiisu waxaa leeyahay bini'aadamku kaamil ma aha. sidaa daraaddeeda dadka marka aad xukminayso ama dhacdooyinka markaa go'aan ka gaaraysid ama marka aad rabto inaad qorshe iyo waxyaabo fara badan aad qaadatid, indhahaada keliya ku go'aan qaadanin. waxay indhahaadu qabanayaan waxyaabo ka badan baa jira oo la raba inaad raadisid. inaad marka xogta shiishid oo information fara badan inaad raadisid intaadan go'aan aadan qaadanin ka hor runtii adi ay ku anfacaysaa. dadka aad la macaamilaysana indhaha oo keliya ku qiimaynin. islaam baa hadda ka hor waxaa dhacday islaan kaloo dariska la ahayd baa jirtay. marka labada cid waxaa u dhexaysay muraayad. marka islaantan markay subaxdii soo kacdo waxay arki jirtay islaanta kale dariskeeda oo dhaqdhaqaysa. marka dharka markay saa u fiirisay dharku waa wasaq markaa bay cayi jirtay. maalintii dambe waxaa dhacday in islaantii soo kacday markii dharkii fiirisana waxay aragtay dharkii oo nadiif ah. kadibna ninkeedii waxay ku tiri maanta dhar nadiif islaanta ay dhaqday. markaas wuxuu ku jawaabay saaka subax hore baan soo kacayoo muraayadda nadiifiyey. marka halkan waxaa ka fahmaysaa marka islaanta waxa ay maalin kasta islaanta kale ku caayi jirtay dharku wasaqba ma ahayne muraayadda wasaq iyaga iyo labada qoys macnaha u dhexaysa. marka sidaa daraaddeeda aragtidaa ku go'aan qaadanin. qodobka afaraad, wax kasta oo lagu sheego ha aaminin. qodobkan aad buu muhiim u yahay. mararka qaar talooyinka lagu siinayo ayaa khatar naftaada u horseedi kara. marka cidna ha aaminin. xog kasta inaad analysgaraysid, inaad aad uga fakerto, inaad yacni si fiican maaragtay u analysgaraysaay adiga muhiim ku tahay. dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhacayay baa waxaa dhacday in madaxweynihii waddanka Mareykanka inuu warqad u diray ra'iisul wasaarihii waddanka Japan. ayaa warqad u diray in isdhiibaan dagaalkana marka ay joojiyaan. marka ra'iisul wasaarihii waddanka Japan warqad buu soo diray. warqadaasi hal eray baa jiray. ereygaas laba macno buu lahaa. macnaha koowaad waxa weeyaan waan isdhiibaynaa waana ka soo fakaraynaa naga jawaab suga. macnaha labaad ereygaasi yeelanayana wuxuu ahaa inuu yahay warqadii yacni madaxweynuhu soo diray wax laga yaqyaqsado yacni labalaba ah. marka madaxweynihii marka warqadii Japan laga soo diray loo geeyey waxaa la siiyey macnaha negatifkii ayaa loo dhiibay. waana sababtii keentay in madaxweynaha waddanka Mareykanku amar ku bixiyo in nuclear lagu weeraro magaalooyinka Japan ee Nagasaki iyo Hiroshima. marka cidna ha aaminin nolosha marka aad la wajahayso ama aad wax qabsanayso. talada shanaad aan ku dhaafay waxa weeyaan iska hubi saaxiibadaada. saaxiibada nolosha aad aaminaysid, saaxiibada noloshaada aad la macaamilayso ee aad wax la wadaagaysid, saaxiibada kuwa aad ka dhiganayso yacni dad kale kaaga soo dhow inaad aad u ilaaliso, inaad aad u doorato aday ku wanaagsan tahay. nolosha inta badan dadka hadda nolosha macnaha ka dhaca dad fiiriso waxa wax ka ridaa inta badan waa saaxiibo. dadka inta badan waxaa la yidhaha sigaarka iyo waxyaabaha kale ee daroogada isticmaalaay asalkooda marka taariikhda dib loo fiiriyo baa la yidhaahdaa ayagu may baran ee qof kaloo saaxiibkooda ahaa ayaa waxaan balwadaan lahaaye saaxiibtinimadii markaa ku barteen. marka qof saaxiibka ah inaad markaan uu noqdo qof saaxiib wanaagsan, dabeecad leh, diintiisa ku fiican, akhlaaqiyaadkiisu ku dhisan yahay, hamiye iyo markaa riyooyin fara badan leh, asagu markaa noloshiisa horumariyey taadana horumarin kara qofkaasaa kuu wanaagsan inaad saaxiib ka dhigatid. rasuulka calayhi salaatu wasalaam 3 jeer buu noola dardaarmay inaanu saaxiibka iska fiirino. marka qodobkaas halkaasaa ugu soo okeynaya. talada lixaad, ficil la'aan noloshu natiijo ma leh. haddii aad rabto nolosha inaad meel ka gaartid, haddii aad rabto nolosha inaad guul iyo hamiye fara badan ay kugu jiraan, ficil la'aan nolosha waxba kama shaqeeyaan. maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday in dalka Mareykanka lagu qabanayay fardaha tartanka. markaas baa nin baa wuxuu soo iibsaday farda aad u qurux badan, kadibna wuxuu ku qoray faraska dunida ugu dheereeya. markaas buu meel ku xareeyey. bilo kadib ayaa tartankii bilaabmay. fardihii ninkii uu warqadda ku qoray ee ahayd faraska dunida ugu dheereeyey ayaa la soo baxshay.
fardihii markii la sii daaya tartanku bilaabmame faraskii wuxuuba noqdayba mid aan ordi karinba. markaas baa warqadii ka fujiyey, kadibna warqad kale ku dhajiyo wuxuu dhahay faraskii adduunku ka dheereeyey. marka faraskaasi waxa keliya ee u baahna wuxuu ahaa in la tababaro training la siiyo. haddii training la siiyo wuu ka hormari lahaa kuwa kale, laakiin meel baa lagu xareeyey. nolosha markaa ficil bay u baahan tahay, hadal keliya macno ma sameeyo. waxa uu nolosha macnaha u yeelay waa ficilka. haddaad fiiriso waddankan Japan iyo Shiinaha inta badan noloshooda inta badan ficilay ku dhisan tahay. 18 saac bay shaqeeyaan dadkaasi. waa sababta loo leeyahay marka inay natiijo fiican adduunka iyo horumar fiican adduunka ugu gaaraan waa ficilkooda badan. sidaa daraaddeed marka ficilkaaga markaas ha ka bato hadalkaada. hadal yar iyo hawl badan ayay markaas Soomaali ku mahmaahaan. qodobka 7 iska cafi dadka qaladka kaa gala. dadka qaladka kaa gala iska cafi. mar badan ay dhacdaa inuu qofkii qalad kaa galo, ama uu adiga ku aflagaadeeyo, ama uu waalidkaa wax ka sheego, ama uu qalad kale kaa geysto. sidaa daraaddeeda iska cafi. ilaahay subxaanahu watacaala ayaana ajir fara badan kaa siinaya, adigana qalbigaada wanaag iyo xasilooyo fara badan ayuu ilaahay soo gelinayaa. laakiin markaad qofkii qaladkii qofka kaa gala aad ciqaabto, qofkaasi adigana qalbigaada ma wanaagsanaan doono, qofkiina waxaa waaye dhaawac baad u geysanaysaa. marka dadka nolosha qaladaadka kaa gala iska cafi. talada 8aad aqoontaada kor u qaad. noloshu waa aqoon, noloshu waa cilmi. qofkii adduunka doonaya cilmiyaa laga rabaa, qofkii aakhiro doonayane cilmiyaa muhiim ah, qofka labada doonayane cilmiyaa muhiim haddane. man araada dunya facalayhi bilcilm waman araada alaakhira facalayhi bilcilmi waman araadahumaa facalayhi bilcilmi. sidaa daraaddeeda aqoontaada kor u qaad. isku day inaad xirfado baratid. isku day inaad noloshaada kor iyo aqoontaada kor u qaadid. inaad maalin kastaba wax noloshaada anfacaya ee xirfad ama fikir ah inaad barato aday ku wanaagsan tahay. marka aqoontaada kor u qaad, xirfadaadana kobci ilaa aqoontaada markaa ay meel fara badan gaarayso. qodobka 9aad doore lamaanaha wanaagsan. qodobkan aad buu muhiim u yahay. qof kastoo nala mida nolosha wuxuu rabaa inuu qoys yeesho. sidaa daraaddeeda lamaanaha adiga aad yeelanayso ha noqdo mid wanaagsan, mid sifooyin wanaagsan leh. sifooyinka larahu muhiimka ah in qofku dulqaad leeyahay, in qofku diin leeyahay, in qofku akhlaaqiyaadkiisu ay fiican yihiin, in qofku yahay qof hami iyo riyooyin fara badan nolosha ka leh, in qofka fakarkiisa iyo qaabku nolosha u arkayo in noqoto mid positive ahoo caqabada iyo fikirka iyo negativeka faraha badani dhibaatay markaa qoyska ku tahay. sidaa daraaddeeda marka lamaanaha aad dooranayso inuu noqdo lamaano wanaagsan, noloshaada wax badan oo wanaaga kusoo kordhiya ha noqdo. laakiin haddii lamaanaha aad nolosha la wadaagaysa uu noqdo mid adiga dhibaato kugu noloshaada markaa meel fiican ma gaari karayso. qodobka 10aad ka dheeraaw xaasidnimada iyo cuqdada. labadan aad buu nabiga calayhi salaatu wasalaam noola dardaarmay in dadka xaasidnimada faraha badani qofka qalbigiisii qallajisaa. mar badan waxaa dhacda in qofku qof kale nolosha guul uu ka xaqiijiyo inuu ka xumaado. waxaad ogaataa dadka inta badan guulaha dadka kale maaragtay ka xumaada ee ka xaasida waa dad ku qanci waayey ilaahay arsaaqadiisa. ilaahay addoommadiisa isagaa kaaga aqoon badan. qof kastaba waxa buu u go'aamiyaa, qof kastaba waxa buu ugu talagalay. marka qof walaalkaa ah ama qof walaashaa ah horumarkiisa aad ka xumaato, nolosha meel uu ka gaari lahaa marka aad ka xumaatid, qofkaasi kama aadan xumaanin, dagaalna qofka kulama jirtid. laakiin cidda aad ka xumaatay ee dagaalka aad kula jirtaay waa ilaahay subxaanahu watacaala ee ku abuuray. marka ilaahay arsaaqada isagaa bixiye cid qof kastaba wixii markaa uu siiyo ku qanac, horumari, dhiirigeli qofka walaalka ama walaashaada ah ee nolosha meel fiican ka gaaraysa. adigana gacmaha ilaahay waxaa weeyaan kor u taago ee bari in ilaahay subxaanahu watacaala adiga noloshaada uu kuu horumariyo, qofka kalena wanaag uga dayo. qodobka 11aad waqti la qaado dadka ku jecel. ma ogaan karaysa waqti aad geeriyoonaysid, ma ogaan karaysa waqti aad xanuunsan doonto. sidaas daraaddeeda dadka ku jecel ee ku qadarinaya, dadka ku ixtiraamaya, dadka qiimahaada garanaya, dadka adiga qofka aad tahay si fiican u yaqaana, dadka wax kugu soo biirin karaya, dadka aadka kugu jecel ee aadka kugu ilaashada, adiguna dadka ilaasho.
haddii dadkaas ku jecel aad ilaashan weysidne waxaad ogaataa dahab ayaad iska luminaysaa. waxaana dhici doonta markaas noloshaada inay kusoo biiri doonaan dadka aan ku jeclayn, dadka aan guulahaada jeclayn, dadka aan waxqabadkaada jeclayn, dadka riyooyinkaada aan jeclayn. dadkaasoo dhan baa kugu soo xoroo doona, ugu dambaynna adiga mushkil kuu noqon doontaa. marka dadka adiga ku dhiirigelinaya, kuwa adiga ku jecel, kuwa horumarkaada aadka ugu farxaya, ku dhoola cadaynaya, laabta ku gelinaya, ku qadarinaya, qiimahaada garanaya, dadkaas aad u ilaasho, waqti la qaado, iyagana markaa tixgelin fiican iyo qiimaha ay ku siinayaan mid ka badan sii. talada 12 ha ku dhex milmin qadiyadaha siyaasadda. dhalinyaro fara badan baa jirta oo siyaasadda iyo arrimaha aad u jecel. marka haddii aad qadiyadaas iyo ummadaha aad ugu jeceshahay, way fiican tahay inaad arrimaha aad ka hadasho, laakiin markaa ka hadlayso ha noqdaa mid cilmi iyo aqoon aad ku kordhisid. haddii laakiin marka la doodayo, marka waxyaabaha qaar la falanqaynayo ay noqdaan waxyaabahaan adigana macno badan ku samaynaynin, dadkii saaxiibada walaalahaana kaa fogeynaya, waxyaabaha qaari waa khatar. sidaas daraaddeeda qadiyadaha ummadaha haddii aadan wanaag iyo khayr iyo fikir iyo aqoon aadan ku biiri karin, ha ku dhex milmin oo ka dheeraa wadanahaada ku mashquul. talada 13 isbar daacadnimada, balan oofinta iyo astaamaha wanaagsan oo dhan. xilligan la joogo waxyaabaha dadku way aad ugu baahan yihiin astaamaha wanaagsan waaye. dulqaadka iyo dabeecadda wanaagga iyo balan oofinta iyo waxyaabahaasoo dhan waa astaamo wanaagsan oo aad maanta ummaddu ay ugu yar yihiin. sidaa daraaddeeda adiga naftaada in astaamahaas wanaagsan aad yeelato adiga ku anfacaysaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis buu noogu sheegay, qofka sifada uu yeesho ilaahay agtiisa baa looga qoraa. haddii qofku yahay qof runlow ahne, ilaahay agtiisa waxaa looga qoraa qof saadiqa inuu yahay. haddii qofku yahay qof beenlow ahne, ilaahay agtiisa waxaa looga qoraa inuu beenlow yahay. sidaa daraaddeeda sifooyinka wanaagsan inaad adigu yeelato aad ugu didaal. dadku si doonaha ku arkaan, noloshooda adigu go'aan kuma lihid, laakiin taadaa go'aan ku leedahay. marka inaad sifooyinka wanaagsan naftaada aad yeelato aad ugu didaal. talada 14 noqo hogaamiye. hogaamiye maxaan kala jeedaa? qofka hogaamiyaha sifooyin badan buu leeyahay. waa qof aqoontiisu ay badan tahay, waa qof dulqaadkiisu uu badan yahay, waa qof dadka dhiirigeliya, waa qof dadka isku wadi kara, waa qof tanaasul badan, waa qof asagu wax qabtay dadka yacni asaga u horeeya. marka inaad noqoto qof hogaamiye ah aad ugu dadaal. meeshii aad noqon lahayd la hogaamiye, adigu waxaad noqotaa hogaamiye sifadaa yeelo. sifa kastoo hogaamineedna inaad nafsadaa laga helo aad ugu dadaal. talada 15 baro naftaada. tani waxaan filayaaba inay tan koowaad ba ahayd, laakiin qodobka 15 baan ka dhigay dhibsa ma leh. naftaada baro waxyaabaha aad adigu fiican tahay, waxyaabaha adigaad ku liidatid, dabeecadahaada, dhaqamadaada, yani waxyaabaha nooc alla wixii naftaada la xiriira inaad baratid, runtii aad bay qiimo kuugu tahay. waxaadna ogaataa haddii aad dadka aad maamushid baa la yidhaahdaa waa maskax, laakiin haddii aad naftaada aad maamusho waa xigmad. haddii aad dadka baratid waa quwad, laakiin haddii aad naftaada barato waa quwad rasmi ah. naftaada aad u maamul, naftaada aad u baro, naftaada aad u yani daraasay, horumar fara badan ayay markaad aad gaari doontaa. talada 16 qoyskaada waqti sii. qof kasta qoys ayuu leeyahay, sidaa daraaddeeda qoyskaada inaad waqti siisaahay aad bay ku muhiim tahay. dadku inta badan maanta shaqooyinkooda iyo waxyaabahaasi ku mashquulsan yihiin. qoyska waqtiga la siiyaay aad buu u yaryahay maanta. sidaa daraaddeeda qoyskaada waqti la qaado. isku day xitaa inaad mar si wadajir dalxiisa u aadaan. isku day inaad si wadajir wax u cuntaan. isku day inaad isku imaataan oo waqti wada qaadataan. qoyskaada markaa waqti sii. laakiin haddii aad shaqo iyo waxaan aad muhiimadda maalinta aad siisahay, xiriirkii qoyskaada aad u yaraa doona. talada 17 cunto wanaagsan qaado. cuntada wanaagsani faa'iidooyin fara badan ayay leedahay. cudurro fara badan bay cuntada wanaagsani qofka ka ilaalisaa. laakiin haddii aad cunto fiican cunin, cudurro fara badan baa adiga kugu soo wajahaya. sidaa daraaddeeda cunto wanaagsan qaado. waxyaabaha inta ugu badan maanta dadka ku arkayna waa qodobkan.
dadku cuntada inta badan cunto fiican ma cunaan, waana sababta keentay in inta badan isbitaalada maantay la wada jiifo. Cunto wanaagsan oo daryeel leh qofku ma cunayo, asagoo ilaalinaya dhaqaalihiisa. Waxaa laga yaabaa laba shay oo isku mid ah laakiin kala qiimaha inuu jiro, midna qiimihiisu uu yar yahay, midna qiimihiisa yaa badan, laakiin tayada haddii la fiiriyo mid baa wanaagsan. Dadku inta badan xoolaha ama cuntada tayada leh way ka cararaanoo kan dhaqaalaha yar bay qaataan. Base maxaa dhaca markaas? Qofkii dhaqaalaha lacagta uu ka baqiilayay waxaa qasab ku noqota in qofkiiba ka damba xanuunsado, deetana qofkaasi in isbitaal uu galo daawooyin markaa ku bixiyo. Sidaa daraaddeeda cuntooyinka aad cunaysa ha noqdaan kuwo wanaagsan, aadna markaa isaga ilaali. Talada 18aad, teelka iska yaray. Dadku maanta taleefanka aad bay ugu dheggan yihiin. Taleefanku inaad isticmaashaa waa ku wanaagsan tahay, laakiin waxaa wanaagsan inaad u isticmaasho wixii wanaagsan. Haddii laakiin gacantaada uu markasta ku jiro ee markasta taleefan aad isticmaashid, ugu dambayn indhaha dhibaatooyin fara badan baa soo gaaraya, garaadka iyo maskaxda dhibaatooyin fara badan baa soo gaaraya. Radioactive shucaaca taleefanka ka imaanaya ee elektarooniga ah wejigaada iyo garaadkaada iyo maskaxdaada indhahaada ay saameyn doonaan. Sidaa daraaddeeda isticmaalka taleefanka in alla intaa iska ilaalin kartid ama aad iska yaray kartid iska yaray. Talada 19aad, jiimka ku dadaal. Jiimka iyo aalamiitada inaad jirkaada dhisto aad ugu dadaal, waayo waxaa la yidhaha qofka marka alla u aalamiiteeyo jirkiisa hormoono fara badan baa lasoo daayaa. Hormoonada faraha badanna waxay keenaan in qofku uu markaa nolosha iyo jirka ahaan inuu markaa u wanaagsanaado, caafimaadkiisu markaa qofku inuu wanaagsanaado. Talada xigta, maalgeli maskaxdaada. Waxa ugu wanaagsan ee lagaa rabo inaad maalgashato, waxa ugu wanaagsan ee la rabo inaad dhaqaale gelisid, waxa ugu wanaagsan ee lagaa rabo inaad xoogga saartid, waxa ugu wanaagsan ee la rabo inaad aad u daryeeshid waa maskaxdaada. Sidaa daraaddeeda maskaxdaada maalgashi ku sameey. Maalgashiga aad maskaxdaada ku samaynaysaahina ha noqdaa maalgashi wanaagsan. Haddii maskaxdaada aad wax xun ku maalgashato, maskaxdaadu wax xun bay soo saari doontaa. Haddii maskaxdaada wax wanaagsan ku maalgashatane, wax wanaagsan bay soo saari doontaa. Talada xigta, qaladaadkaada wax ka baro. Qof kastoo bini'aadam ah qalad buu geystaa. Qof kastoo bini'aadam ah qalad lagama waayo. Sidaa daraaddeeda qaladaadka aad gelayso ha kuu noqdaan kuwo aad wax ka baratid. Laakiin haddii aad qalad samayso kadibna aad iska baxdo adoo waxba qaladka ka baran, haddana berri baad kusoo laabanaysaa. Sidaa daraaddeeda qaladaadkaada aad wax uga baro. Qofka caqliga badan baa la yidhaahdaa qaladaadkiisu wax ka bartaa, laakiin qofkaasi qofka ka caqliga badani dadka kale qaladaadkoodu way ka bartaa. Marka aad ugu daya inaad qaladaadkaada waxyaabaha markaa kugu xeeran inaad markaa baratid. Talada xigta, noqo qof deeqsi ah. Qof deeqsi ah markaan ku leeyahay kalama jeedo inaad dhanka lacagta oo keliya deeqsi ah ku noqotid, laakiin waa inaad dhanka waqtigeeda deeqsi ku noqotid oo dadka saaxiibada ehelkaada ah waqtigeeda ha ka baqiilin. Dhanka talada ehelkaada iyo asxaabtaada iyo ummadaada ha kala baqiilin. Dhanka dhiirigelinta iyo inaad qof niyada u dhisi karto adna dhankaas deeqsinimo ku noqo. Dhanka qarashaadkana sidaasoo kale deeqsi ku noqo. Ha noqonin qof gacantiisu ay laaban tahay, waayo taasi ma ku wanaagsana. Talada xigta waxaan ku leeyahay dhiirigeli dadka kale, dadka kugu xeeran dhiirigeli. Nolosha runtii waa mid aad u caqabo badan, nolosha waa mid aad u adag. Sidaa daraaddeeda dadka walaalahaada ah, dadka kugu hareeraysan caqabadaha la kulmaya, dadka dhiirigeli. Dhiirigeli fara badan sii, ayagana hal talo iyo hal dhiirigeli aad siiso, ayagana culayska ka yareyn doontaa, adigana dhaqaale kaagama baxayo, waxna waad u taraysaa. Talada xigta, carruurta baro. Fanniga carruurta runtii waa wax aad muhiim u ah. Waxa ugu badan oo maantay balaayiinta lacag u baahan yahay inaan ku bixino waa carruurteena, habka ama noloshooda qaabka u horumarin lahayn. Carruurtu maantay waa waxa ugu muhiimsan ee rabo waalidku inuu xoogga saaro. Qof kasta oo naga mid ah waa walaal, waa hooyo ama waa aabe. Sidaa daraaddeeda carruurta qaabka loola macaamilo, qaabka loo dhiirigeliyo, qaabka loo horumariyo, qaabka marka ayaga naftooda yacni isbeddel loogu sameeyo inaad barato aad ay muhiim u tahay. Talada xigta, cibaadadaada ku dadaal. Cibaadadaada waa waxa Ilaahay marka adduunkan ku keenayba. Qof muslim ah maadaama aan dhammaantiin wada nahay inaan cibaadada ku dadaalnahay, adduun iyo aakhiraba faa'iido ayay noo lahaan doontaa. Talada xigta iyadana
hurdada toosi. Hurdadu aad muhiim u tahay. Qofku marka uu xilli hore seexdo iyo marka kaleba farqiga u dhexeeya. Sidaa daraaddeeda hurdadaada aad ugu dadaal. Hurdadu waa waxa qofka jirkiisa ka dhiga inuu waqti kala shaqayn karo. Waa qof hurdadu waa shidaalkii qof u saacidi lahayd inay markaan qofku nolosha wax ka sameeyo. Sidaa daraaddeeda haddii hurdadaada ay qaldan tahay noloshaada dhan baa qaldan. Ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu ku sheegay wajacalna alleyla libaasa wajacalna annahaara macaasha. Habeenkii waxaan loo si inaan nasano. Marka inaad habeenkii xilli fiican aad jiifatahay adiga ku anfici doontaa. Qodobka xiga sadaqada ku dadaal. Ilaahi subxaanahu wa tacaala dhaqaalaha uu ku siinayo maalka uu ku siinayo inaad wax ka bixisid aad ugu dadaal. waxaadna ogaataa wax kasta oo aad nolosha bixisid dhaqaale kasta nolosha aad bixisid oo aad sadaqaysatid maaha wax adiga maalkaada yaraynaya maalkaada ay kordhinayaan waana wax adiga kaa horeeyo adduun iyo aakhiraba waad ku liibaadi doontaa. Talada xigta ha hilmaanin wanaaggeeda lagugu sameeyo. maadaama dad wanaagsan aad saaxiib ka dhiganaysid maadaama dad wanaagsan aad ehel ka dhiganaysid dad fara badan baa abaal kuu geli doona. Marka dadka abaalka kuu gala ha hilmaamin abaalka adiga aa gashidne ha xasuusanin oo dadka abaalka u gelaysid ha dhihin shalay abaalka idin sameeyey aniga maanta hala ii sameeye ha dhihinoo ha hilmaamin kuwa adiga abaalka lagu galo laakiin wixii adiga aa gashay iska hilmaam. Talada u dambaysa horta aan ku dhaafi karo waxa weeyaan 2025 hadaf yeelo. Hadafku inaad yeelatahay adiga noloshaada macno fara badan bay ku samayn doontaa. Sidaa daraaddeeda hadafka mawduuc gaar ayaan ka diyaariyey. Haddii aad u baahan tahay qaabka hadafta loo dejiyo iyo wax kastoo la xiriira YouTube-kan Iraad Media ama Daalib Media halkaas aad uga daawo. Waxaan rajeynayaa talooyinkaas in noloshaada wax badan ka bedeli doonaan. Aadaa u salaamantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.